xidiga kubadda cagta ee Paul Pogba oo ciyaara kooxda Manchester United isla markaana ninka ugu qaalaysan inta la kala iibsaday ciyaartoyda sanadahan ugu dambeeyay ayaa gaaray magaalada Marca si uu u cimraysto. Paul Pogba oo dalka Faransiiska u dhashay ayaa dadka la wadaagay sawir uu ku sugan yahay magaalada Marca oo ku soo laday qoraal kooban oo ah wixii ugu qurux badnaa ee aan arko intii aan noolaa. Twitter-kana waxa uu ku soo qoray tahniyad isaga oo yiri Ramadaan wanaagsan. Ciyaaryahankan 24 sano jirka ayaa xagaagii hore noqday ciyaartoyga ugu qaalisan ee kubadda cagta ciyaara kadib markii Manchester United ay ka soo iibsatay kooxda Juventus ee horyaalka dalka Talyaaniga iyagoo markaasi soo siistay 114 milyan oo dollar. Arbacadii ayuu qaaday koobka Europa League kadib markii ay Manchester United ka badisay kooxda Ajax oo ciyaartii kama dambaysa iskaga hor yimaadeen magaalada Stockholm ee cariga dalka Sweden. Markii ciyaartaasi dhamaatay ayuu soo dhigay muuqaal kooban oo uu ku leeyahay waxaan u sii socdaa in aan soo cibaadeysto oo aan soo